agaasimaha guud ee wasaaradda marinta caafimaadka Somaliland mudane Dr. Cabdi Maxamed XERGEEYE ayaa ka warbixiyay ay marayso xaaladda xanuunka coronavirus ama COVID-19 halka ay marayso dadkii la shaybaaray dadka looga shakisan yahay markaasi inay xanuunkan qabaan iyo cidda soo wacday ama cid talooyinka ku habboon ee xanuunkaasi ee soo wacday xarunta guud ee loo yaqaano Center Health ay sameeyeen si markaasi looga caawiyo ummadda reer Somaliland hadii agaasimaha guudna waxa kamid ahaa sida tan kalena uu shaybaarkoodu maqan yahay oo aan filayna iyagana in ay saan Ilaahay ka rajaynayno ay ka bogsadaan marka uu shaybaarkoodu noo yimaado waxa kale oo idin sheegayaa tirada hadda shaybaar dibadda noogu maqani wali inay tahay 11 qof halka tirada ku jirta karantiina iyaduna ay tahay 11 qof tirada aanu xanuunkan ka eegno ee aanu ka hubinay gaar ahaan dadka inoogu imanaya baabuurta ganacsiga ee xuduudaha kala duwan ka soo galaya 24 saacadood ee u dambeeyay waxaan 1217 qof 1217 qof waxa laga eegay calaamadihii xanuunka lagumana arag wax calaamada oo kamid ah calaamadihii xanuunka COVID-19 24 saacadood ee u dambeeyay waxa soo garaacay xarunta koolka ama xarunta ay yaalaan taleefanada lagaga jawaabaya xanuunkan ama call centerka waxa soo garaacay 83127 qof 83127 qof oo helay jawaabo dhinaca taleefanada ah oo ay u jawaabeen dadkii taleefanka ka soo hadlay ama soo wareystay xaaladaha xanuunka ama calaamadaha xanuunka ama qof xanuunsanayaba soo sheegay halka waxaan jecelahay inaan fariin ka gudbiyo dhinaca isticmaalka call centerka ee dadweynaha waxa aan dadweynaha ka codsanayaa una sheegayaa inaan la tijaabin koolka inaan qof dan lahayn aanu soo garaacin waxa koolkii soo galay mashquul badan oo ah ama dad iska hubinaya koolkan oo markay arkaan iska garaacaya ama qof ku ciyaarayaba oo aan waxyaabo runa aan soo sheegin sidaa daraadeed waxa aan dadweynaha ka codsanaynaa in uu numberkan yahay number loogu tala galay inuu u adeego qof xanuunsanaya ama qof doonaya wacyigelin oo dhageysanaya ama qof isagu iska tijaabinaya calaamadihii xanuunka sidaa daraadeed waxaan bulshaweynta Somaliland u sheegaynaa in ay ka daayaan mashquulinta koolkan numberkaasi 988 ah oo aanay si ku celcelisa u soo garaacin iyaga oo aan dan ka lahayn ama tijaabinaya ama ku ciyaaraya fariinta dadweynuhu waa inay qaataan waayo koolkaasi waa muhiim amba centerkaasi waa muhiim waxaan u adeegayaa bulshada in ay ama soo sheegaan qof xanuunka looga shakisan yahay ama uu qofku isagu uu soo weydiisto service caafimaad ama uu iskaga hubiyo calaamadaha xanuunka صحفي سيارة شبكة عالمية هي أودوينة ميديا Hargeysa